يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد ma lii ogol yahay dadka kale inaan alle u weydiiyo dembi dhaaf ducadeyda gaar ahaaneed marka aan alle u ducaysanayo? haddii arrintaasi waajib tahay sideen u samaynayaa? arrintaasi ma ahan awoodid, balse waa arrin la isku dardaarmay. marka aad ducaysanayso waxaa waajib inaad muslimiinta kalena u ducayso, muslimiinta ragga ah iyo kuwa gabdhaha ahba. arrintaas waxaa lagu sheegay dhowr meelood oo ka mid a qur-aanka, sida lagu sheegay qur-aanka suuratu Muxamed suuradda 47 aayadda 19. una dembi dhaaf weydii naftaada iyo mu'miniinta rag iyo haweenba. arrintaas macnaheedu waxaa weeye inaad naftaada alle dembi dhaaf u weydiido, sidoo kalena mu'miniinta ragga iyo dumarka ahba aad u weydiido. waxaa jirta duco uu ku ducaystay nebi nuux calayhi salaam, suuratu nuux suuradda 71 aayadda 28. markii uu ducaysanayay sayiduna nuux calayhi salaam, rabbiyow u dembi dhaaf aniga iyo labadayda waalid iyo ruuxii gala gurigayga isagoo mu'min ah rag iyo haweenba. nabigeena moxamed sallallahu calayhi wasallam xadiid ku jira sunan tirmidhi nambarka 3385, nabiga sallallahu calayhi wasallam marka uu doonayo inuu dadka kale u duceeyo nafsadiisa ayuu ka bilaabi jiray rabbiyow ii dembi dhaaf. kadib wuxuu dhihi jiray ilaahu u dembi dhaaf muslimiinta rag iyo dumarba iyo intaa wixii la mid ahba. laakiinse waa waajib inaad digtoonaataa, dadka kale aan muslimiinta iyo mu'miniinta ahayn ilaahay dembi dhaaf uma weydiin kartid. maxaa yeelay Allah subxaanahu wa ta'ala qur-aanka ayuu ku leeyahay suuratu tawba suuradda 9 aayadda 113, kuma habboona nebiga iyo kuwa rumeeyey xaqa inay u dembi dhaaf weydiiyaan mushrikiinta, yacni gaalada, haba ahaadeen qaraabadoodee, markay u caddaatay kadib inay ehelka naarta jaxiima yihiin. laakiinse waa suurtagal waxyaabo kale inaad ugu duceydo, inaad dadka aan muslimiinta ahayn aad ugu duceydo kale caafimaad, tharwa iyo lacag iyo waxaas inaad ugu duceydo adduunyada ah. arrintaasi nafsad ahaanteeda way iska bannaan tahay. ducatan ugu wanaagsan ay u suurtagal tahay inaad ugu duceydo dadka aan muslimiinta iyo mu'miniinta ahayn waa hanuun. ducada ugu wanaagsan ee qof mushrik ama gaal ah ee aad ugu duceysaahi waxaa weeye hanuun. wuxuu ku yidhi nabigeena moxamed sallallahu calayhi wasallam xadiid lagu sheegay sunan tirmidhi 3681, nebigu wuxuu yidhi ilaahayow islaamka ku cusay oo ku xooji labadaa nin midka looga galgacayl badan yahay agtaada, abijahal ama cumar binu khadaab. ilaahayna hanuunkii wuxuu siiyey cumar binu khadaab radiallahu canhu oo diinta islaamka ayuu soo galay. sidaa darteed waad awoodaa mar kasta inaad u duceydo kuwa aan muslimiinta ahayn ee gaalada ah. waxaad ugu ducaynaysaa hanuun, waana middaa ducada ugu fadliga badan ead ugu duceydaa iyaga.